codkaasi macaan ee aad maqlaysaan waa fanaanka barta yar ee muuqiisa iyo da'diisa aan islahayn ee u dhashay dalka Guinea waa Grand B Dan oo ay Soomaalida u taqaano Alfanaandoli haddaba waxaad muuqaalkan ku daawan doontaan warbixin xiiso leh oo ka hadlaysa xiriirka jecel ee ka dhaxeeya lamaanaha Grand B iyo Doqseya oo jecelkooda noqday kan ugu hadalheynta badan caalamka haddaba haddaad tahay shakhsi ku cusub barteena YouTube-ka Idaaja Media fadlan subscribe dheh oo gambaleelka furo si aad u noqoto shakhsi mar walba hela warbixinadan halkan soo gelino lanti wanaagsan mar kale haddaba dabayaaqadii bishii July ayay gabadha caanka ah ee reer Ivory Coast ee Doqseya oo ku dhawaaqday inuu dhamaaday xiriirkii ka dhaxeeyay fanaanka reer Guinea ee Grand B Dan oo ay Soomaalida inta badan u taqaano Fanaandoli Doqseya ayaa barteeda Facebook ku qortay waxaan rabay inaan idin sheego in xiriirka aniga iyo Grand B Dan uu dhamaaday sidaa darteedna aan hore u socon doono hase yeeshee qoraal uu dhawaan soo dhigay bartiisa Facebook-ga Grand B ayuu ku sheegay inuu xiriirkoodii dib u soo noqday oo ay heshiiyeen waxaana la arkayay sawiraan baraha bulshada qabsaday oo muujinaya lamaanahan wada jirkooda Doqseya waxay caan ku tahay xayeysiinta dharka iyadoo waliba ka duwan dadka kale oo dharka xayeysiiya sababtoo ah waa qof aad u buura marka ay ku jirto ganacsigeeda inta badan wax musiga ma adeegsato waxay caan ka tahay baraha bulshada oo barteeda Instagram-ka kaliya ayaa waxa ku xiran 1.6 milyan oo qof dhanka kale Grand B waa fanaan caan ah oo u dhashay dalka Guinea muuqaal ahaan wuxuu u muuqdaa qof aad u daayar balse da ahaan waa nin weyn dadka ayaa aad u jecel oo waxay ugu yeeraan fanaankii bilyaneerka ahaa inkastoo aysan cadeen tirada lacagta uu haysto gabadha caanka ah ee reer Ivory Coast ee Doqseya ayaa markii ugu horeysay ee bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 shaacisay xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo Grand B wax yar uun kadib markii ay shaacisay xiriirkoodna ayaa waxa barteeda Instagram-ka ku soo xirmay dad 1 milyan kor u dhaafaya kadibna waxay sheegtay in iyada iyo fanaanka reer Guinea ay si wada jir ah u qaban doonaan rubaayad faneed xitaa markaasi waxay qoraalkeeda ku sheegtay inuu ninkeeda yahay inkasta uusan noqon ilaa bishii August ee sanadkii 2020 oo ahayd markii ay shaaciyeen meherkooda qoraalkaasi xitaa waxa ay ku sheegtay in waalidiinteeda aysan ku raacsaneen guurka iyada iyo Grand B waxayna sheegtay in sidoo kale taageerayaasheeda ay soo weydiiyaan sababta uu afka ugu dhunkanayo balse ay badanaa uga jawaabtay inuu jecel ka dhaxeeyo waxay qoraal kale oo barteeda Instagram-ka soo dhigtay ku sheegtay in xiriirkooda ay ku faraxsan tahay aysan wax dhibana ku qabin qaabka muuqaalkiisa ama farqiga u dhaxeeya labadooda marka laga hadlayo jir ahaantooda fanaankan ayaa had iyo goor ka soo dhex muuqda baraha bulshada ee Soomaalida iyadoo inta badan dadka ay ku maadeystaan iyagoo eegaya qaabka muuqaalka lamaanahan oo aad u kala fog waxaase maalmihii ugu dambeysay la yaab noqday oo hadalheen badan dhaliyay sawir uu Grand B bartiisa Facebook soo dhigay kaasoo muujinaya Doqseya oo ku fadhida lugaha Grand B